waxaan u qaatay candlekan lower option, laakiin candlekan wuxuu noqon doonaa loss because gap ayaa jiray. Sidoo kale intood candlekanne waxa uu sameeyey new high ayuu sameeyey candlekan week ah. So suuqan wuxuu sameeyey w pattern mar hadduu samaystane waxaa iska caddahay in suuqa jihadiisu ay noqon doonto dhanka iyo uptrend. So suuqu wuxuu soo sameynaya low high, haatanne wuxuu diyaar u yahay inuu jabsado levelkan. Marka qaladkaygu waxa uu ahaa in aan suuq jihadiisa ay tahay buy aan u qaatay lower option because of this. Hadda waa ujeedaan salaries ayaa soo gelayo, laakiin waa arki doonaa candlekan sida u dhaqmo. Haddii uu noqdo mid xoogan waxaan u qaadan doonaa dhanka iyo sell. Haddii uu noqdo mid daciifan waxaan sugi doonaa another confirmation kale oo noo caddeyn kara suuqan inuu uptrend noqon doono insha Allah. Saa ujeedaan suuqan waxa uu sameeyey w pattern hadduu samaystana mar way iska caddahay in suuqa jihadiisu ay aadi doonto dhanka iyo cagsiga. Saa ujeedaan waxaa samaysmay week, so waxaan sugaynaa candlekan level no level, laakiin waxaan sugi doonaa candlekan sida uu dhaqmo. Haddii candlekan hadda socdo uu noqdo red waxaan u qaadan doonaa dhanka iyo lower option, laakiin haddii uu noqdo green suuqa jihadiisa ayuu sii wadan doonaa insha Allah. Rejection. Laga kale ayaan iska sii fiirin doonaa intii candlekan nooga qaabeysmayo. NZD/USD. saa ujeedaan NZD/USD waxay ku socotaa down trend. Minorkeeda waa down trend, laakiin majorkeeda waxa waa iyadana up trend. So kaliya waxaan diiradda saari doonaa majorka. waa ujeedaan waxaa samaysmay strong green candle, laakiin haddana waxaa samaysmay red candle. Halkan aan fiirino. saa idin sheegaba waxaan u qaadan doonaa dhanka iyo higher option. Sababta hore kuugu sheegay suuqan void ayuu soo buuxiyey. Rejectionkan it means waxaa waaye void ayuu soo buuxiyey. suuqanne waxaa kasii dhalan kara 2 candle ilaa iyo 3 candle oo buy ah. waan fiirin doonaa waxa uu ku dhamaado suuqan insha Allah. NZD/USD iyadana waxaa samaysmay strong red candle, waxaan u qaadan doonaa dhanka iyo lower option. labadan lacagood ayaan qaadanay. aan fiirin lacagtan. waan hubaa in candlekan uu noqon doono green because marba hadduu samaysmay w pattern suuqa jihadiisu way iska caddahay. sidoo kale intood waxaa samaysmay candle green ah oo rejection wata. rejectionkaas it means waxaa waaye pressure void ayaana la buuxinayay. voidkaas markii la buuxiyana candleska soo socdo hore ayuu sii socon doonaan. saa ujeedaan waa kaa waan wingareynay. halkaani waxaa nooga dhashay weak sellers. tradekan haddii uu hoos soo dhaco ayaan qaadan doonaa anagoo ka qaadanayna marginal safety. good. waxaan u qaatay dhanka iyo higher option maxaa yeelay waxaa samaysmi rabaa new trend cusub ama suuqu jihadiisa uptrend ayay isu bedeli doontaa. maxaa yeelay suuqu wuxuu kusoo socday down trend. levelka xigana halkan waaye oo selleriska ay soo geli karaan. intaas waxaa socon doona insha Allah buyers. aynu aragno waxa uu ku dhamaaday insha Allah. new trend ayaa bilaaban doona insha Allah. 2 1 good.